calaykum dhageystayaal kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo ku saabsan xaaladda magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. maanta waxaan idin soo gudbinayaa warar xasaasi ah oo la xiriira amniga siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada Koonfur Galbeed. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay si buuxda ula wareegay magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. ciidamada xoogga iyo kuwa la baxay badbaadada Koonfur Galbeed oo markaas ka soo dhaqaaqay dhinaca Daynuunay ayaa howlgal militari ku galay magaalada iyaga oo si buuxda ula wareegay magaalada, mana jirin difaac culus oo lagala hortagay markii ay gudaha u galeen Baydhabo. haddaba su-aasha ugu weyn la isweydiinayo ayaa ah sababta keentay in si fudud looga adkaado madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo muddo 7 sano ah xukumayay maamulka Koonfur Galbeed isla markaana lahaa ciidanka iyo maamul dhisan. Ismaaciil Cabdulle oo si qoto dheer u diristay arrintan ayaa idin soo gudbinaya 6 qodob oo door weyn ka qaatay isbedelka degdega ah ee ka dhacay Baydhabo. kala qaybsanaan bulsho, kala qaybsanaan xoogan oo muddooyinka dambe ka dhex jiray shacabka iyo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ayaa si weyn u wiiqday awoodii siyaasadeed ee Cabdicasiis Laftagareen. madaxweyne Laftagareen ayaa lagu eedeeyay in uusan ku guuleysan mideynta bulshada iyo siyaasiyiinta, taas oo keentay in taageeradii uu haystay ay si weyn u yaraato. shalay markii ay ciidamada dowladda gudaha u galeen Baydhabo waxaa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay shacab badan, taas oo muujinaysa in isbedel siyaasadeed ay qayb ka mid ah bulshada doonayeen. awoodda mucaaradka ee gudaha deegaanka, mid ka mid ah arrimaha soo dejiya in laga adkaado hoggaanka Laftagareen ayaa ahaa in dagaalka ay ka qayb ahaayeen ciidamo maleeshiyaad oo taageersan siyaasiyiinta la safan. dagaalka ay qayb ka ahaayeen dowladda federaalka, kuwaas oo si wanaagsan u yaqaanay deegaanka iyo gudaha magaalada. taageerada ciidamada ayaa sahashay in ciidamada dowladda ay si degdeg ah ugu fidaan magaalada. ciidamada ayaa la sheegay in ay hore ugu sugnaayeen deegaano badan oo ku dhow Baydhabo, isla markaana ay door weyn ka qaateen jibida difaacyadii yaraa ee yaalay ee wadooyinkii soo gala magaalada. tani waxay sahashay in ciidamada dowladda ay si fudud ku gaaraan bartamaha magaalada. qorshe la'aan difaac, madaxweyne Laftagareen intuu xukunka hayay ma uusan sameyn difaac ka fog magaalada Baydhabo, taas oo ah xeelad militari oo muhiim ah. ciidamada dowladda ayaa maalin ka hor joogay Daynuunay oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirto Baydhabo, mana jirin difaac culus oo ka hor yimaada intii ay sii jeedeen magaalada. falanqeeyaal militari oo la hadlay Ismaaciil Cabdulle Janaal ayaa sheegay in haddii difaac adag laga sameyn lahaa deegaanada u dhaxeeya Daynuunay iyo Baydhabo ay adkaan lahayd in ciidamada dowladda ay si degdeg ah ku gaaraan magaalada. tani waxay muujinaysaa in maamulka Laftagareen uu ku guul daraystay qorshe difaac oo istiraatiiji ah. howlgalka dhulka ciidamada ayaa ku lamaanaa mid cirka ah, iyadoo la rumaysan yahay in Turkiga uu taageero militari siiyay ciidamada dowladda federaalka ee ku sii jeeday Baydhabo. intii uu socday howlgalka diyaarado dagaal ayaa duqeymo ka geystay goobo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab, taas oo sahashay in ciidamada ay si nabad ah ku dhaafaan deegaanadaas. tan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee Turkiga si toos ah ugu qayb qaato dagaal gudaha ah oo ka dhacay magaalada ka tirsan Soomaaliya, taas oo muujinaysa isbedel cusub oo ka yimid siyaasadda arrimaha Soomaaliya. mowqifka Itoobiya iyo xiisadaha doorka Itoobiya ayaa kaalin weyn ka qaatay wixii shalay ka dhacay Baydhabo, maadaama ciidamo ka tirsan ay ku sugan yihiin magaalada Itoobiya oo hore loogu tirin jiray dal si dhow ula shaqeeya maamulka Laftagareen ayaa markaan muujiyay dhexdhexaadnimo iyada oo aan si toos ah uga qayb qaadan dagaalka. dhexdhexaadnimada Itoobiya ayaa la sheegay in ay dhabar jab weyn ku noqotay Laftagareen, maadaama uu horey ugu tiirsanaa taageerada ciidanka Itoobiya ee ku sugan Koonfur Galbeed. markii ay Itoobiya ka gaabsatay in ay dhinac la safato, waxaa si weyn u daciifay awoodii militari ee Laftagareen. muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kororsi iyo doorasho la'aan lagu eedeeyay maamulka Laftagareen ayaa ka mid ah arrimaha soo dedejiyay guuldarrada hoggaankii maamulka Koonfur Galbeed. siyaasiyiin badan oo mucaarad ah ayaa muddooyin dambe ku eedeynayay Cabdicasiis Laftagareen inuu diiday inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah. arrintan ayaa keentay cadaadis siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah, taas oo ugu dambeyn sababtay in siyaasiyiin badan iyo xildhibaano ay ka hor yimaadaan maamulka Laftagareen.
isla markaana taageeraan isbeddelka dhacay Baydhabo. Isku soo wada duubo isku darka kala qaybsanaanta siyaasadeed, taageerada maleeshiyaadka deegaanka, istiraatiijiyada militari oo liidata iyo doorarka dalal shisheeye ayaa la rumaysan yahay in ay sabab u noqdeen in si degdeg ah looga adkaado maamulka Laftagareen. Si kastaba xaaladda magaalada Baydhabo ayaa haatan mid degan ah, waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidamada xoogga dalka, iyadoo halkaasi ay ka gaari doonaan wafdi sare oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya si loo guda galo dhismaha maamulka cusub.